maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaado maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50,000 sannadood bay u dhigantaa afkumaynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana aayadta lagu tilmaamaya aayad kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamaya maxay 50,000 sana mufassiriinta badba waxay dhahdaan maalintani waa 50,000 sannadood haddana 50,000 sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1,000 sannadood mufassiriinta badba saa yidhahdaan ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadooda weeyaan innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba baa ilaahay leey iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leey maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leey laakiin bini aadamku dee marka aakhira looga sheekeeyo wuxuu isirahaa waqtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu beryahan ma jiro wardiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su'aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceedu soo dhowdayo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meelu joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yani maalinta tani waa maalin hayru caadiya cadceedu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembik dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo cadceedda ka kulul ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahannamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii bale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa dhulka muggiyo dahab ma aha dhulka oo qura isagoo dahaba ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaban walow iftadaa bih xataa hadduu haysta baa ilaahay leeyihi dhulka muggiyo dahaba oo yidhaahda intaa ha layga qaado aniga maanta ha layga daayo cidi ka dayn maysa baa ilaahay yidhi ulaa'ika lahum cadaabun aliimun wamaa lahum min naasiriin war kuwaasi cadaab kulul bay leeyihiin cadaab wax laxwiya wax guba ciduu hiilisiye ciduu gargaartana yeelan maayaan sida ogeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari ku yaala yujaa'u bilkaafiri yowma alqiyaama fayuqaalu lah arayta low kaana laka mil'u lardi dahaba akunta taftadii bih maalinta qiyaamaha gaalka la keena baa ilaahay leeyihi siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha gaalka la keenaa markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa war haddaad dhulka muggiyo dahaba haysan lahayd maanta ma isku furan lahayd fayaquulu nacam haa buu yidhaahdaa waan isku furan lahaa fayuqaalu lah waxa loogu jawaabaa qad kuntu sa'altuka maa huwa aysaru min dalik horaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud markaad dunida joogtay dhul muggiyo dahabay sii kumaan odhan baa ilaahay leeyay markaad dunida joogtay bes ii caabud baan ku idhi kaasoo ka fudud inaad dhul muggiyo dahaba keento tii fududayd baa lagaa waayey waxba cid maanta kaa dhegaysan mayaysaa la leeyahy wax ka fudud baad bixin weydaye
xaalka gaaleed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka intuu u jeclaa xataa haddii la yidhaha ha la cadaabo oo adiga ha lagu sii daayo inuu aqbalayo yawaddu almujrimu low yaftadii min cadaabi yowmiidin bibaniih wa saaxibatihi wa akhiih wa fasiilatihi alatii tu'wiih waman fi lardi jamiican thumma yunjiih kalaa inahaa ladaa wuxuu jeceliyey dembiiluhu baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maalintaa cadaabkeeda inuu isku furto wuu jeclaan lahaa xaaskiisii iyo walaalkii iyo tolkii iyo qabiilkii iyo wuxuu sheeganayoo dhan iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala